aktarada ka tirsan Tollywood Film Industries ee dalkaasi Hindiya. barnaamijka aktarada ka tirsan Tollywood Film Industries ee dalkaasi Hindiya. barnaamijka waxaa ka daawanaysaan Saxafi Film Channel. waxaad kaloo nagala socotaan www.tomnaad ku jira Mahesh Babu. Mahesh Babu aad wada taqaanaan oo kamid ah aktarada ka soo jeeda koonfurta dalkaasi Hindiya. waa superstar aad looga qadariyo Tollywood performer ah. waxa uuna kamid yahay aktarada qaranka Hindiya ay aad ka u qiimeeyaan. filimada uu jilaagan Mahesh Babu daadihiyo waxa ay u badan yihiin isaga oo dalkiisa iyo dadkiisa difaacaya, waana inta keentay inuu ku helo taageero badan iyo sumcad aad u sareysa dhanka jiliinka ah. haddaba jilaagan Mahesh Babu qaab jiliinkiisa waxa uu ka dhigay inuu ka mid noqdo legendary amaba halyeyada ka tirsan Tollywood Film Industries ee dalkaasi Hindiya. haddaan intaasi kaga gudbo Mahesh Babu, waxaan soo qaadanaynaa kaalinta 9aad. waxaa ku jira Rama Rao oo ka mid ahaa aktarada ka tirsanaa Tollywood Industries muddo aad u badan. ugu dambeynna waxa uu ka gaaray jacaylka iyo maxabada ay u qabaan Tollywood Industries gobolada ku midoobay inay u doortaan Chief Ministry uu ka ahaa gobolka Andhra Pradesh muddo gaaraysa 7 sano, waxaana keentay in uu 7 sano ka noqdo gobolka uu u dhashay wasiir jacaylka iyo qaabka uu filimada ku jiri jiray. waxa uuna ka mid yahay dadka ugu hantida badan dhanka ganacsiga markay noqoto. waxa uu ku guuleystay abaalmarino badan oo uu ku muteystay qaab jiliinkiisa. markii uu xilka soo wareejiyay 7 sano kadib, shacabka reer Andhra Pradesh waxa ay yiraahdeen jir oo joog oo filimadaadii aad ku wanaagsanaa wali noo soo jil. waxaana uu ka mid yahay aktarada aadka looga qadariyo Tollywood Industries ee dalkaasi Hindiya, waana Rama Rao kaalinta 9aad ayuu ku jira. haddaan intaasi kaga gudbo kaalinta 8aad, waxaa ku jira aktarka lagu magacaabo Konadiela Sivasankara Varabarzat. haddaba magacan waa magaciisa dhabta ee loogu yeero jilaagan, inkastoo Soomaalida ay u taqaano oo magaca dhanka filimada loogu yaqaan ee fanka waa Jirin ayaa lagu naanaysaa oo waxaa loogu yaqaanaa film industry-ga, balse magaciisa dhabta waa Konadiela Sivasankara Varabarzat. waxa uu ka mid yahay aktarada ugu jiliinka wanaagsan hadday noqon lahayd dhanka ciyaaraha. waxaa kaloo uu ka mid yahay producerada film soo saarayaasha. waxa uu kaloo ka mid yahay Indian National Congress. Jirin waxaa kaloo loo yaqaanaa in uu ka mid yahay dadka mujtamaca reer India dhammaanba gobolada kala gedisan ee dalkaasi uu ka kooban yahay. markay magaca Jirin waxa ay soo xasuustaan amaba dhegta ay ku dhigaan in uu ka mid yahay aktarada ugu jiliinka wanaagsan uguna qaab ciyaarka wanaagsan. aktarkan waxa uu jiray in ka badan 149 filin oo ka mid ah filimada ugu wanaagsan aadkana loo jecel yahay. filimadiisa kaliya Tollywood Industry kuma koobnee, waxaa kaloo uu leeyahay filimo uu Bollywoodka ka jiray. haddaan intaasi kaga gudbo Jirin iyo kaalinta 7aad, waxaa ku jira Akinini Nagarjuna oo ka mid ah Tollywood Industries. aktarada filimada ka sameeya labadan gobol ee aan hore idinku sheegnay ee Telangana iyo Andhra Pradesh gobolada ku mideysan Jilayasha ka soo jeeda. Nagarjuna waxa uu caan ku yahay Telugu cinema specialist ayaa loo yaqaanaa. waxa kaloo uu ka mid yahay producerada filimada maalgeliya. telefishinno badan oo goboladaasi laga leeyahayna barnaamijka ka baxa isaga ayaa iska leh. waxa uu ku guuleystay Nanda Awards 9 jeer. waxa uu kaloo ka mid yahay aktarada abaalmarinaha badan ku guuleystay jiliinkooda. aktarkan waxa aktarada kale looga soocaa waxa uu sameeyay oo uu maalgeliyay filimo aad u badan marka ay noqoto dhanka jiliinka iyo dhanka maalgashiga. sidaa daraadeed waxa uu ka mid yahay xidigaha aadka loogu qadariyo Tollywood Film Industries. waxa uuna kaga jiraa kaalinta 7aad. haddaan intaasi kaga gudbo Akinini Nagarjuna, waxaan soo qaadanaynaa kaalinta 6aad. jilaaga fadhiya ee Nandamuru Tarakarama Rao Jr. waa NTR. jilaagan waxa uu ka mid yahay aktarada Telugu Industries caanka ku ah. waxaa kaloo ninkan lagu tilmaamaa waa jilaagane 10 jilaa ee ugu wanaagsan ayuu ka mid noqday sanadkan haatan aynu ku jirno. waxaana sababay qaab ciyaareedkiisa iyo muuqaalada uu filimada ku bandhigo, isagoo oo waliba haddana intaas ay u dheer tahay inuu yahay fanaan heesaha qaada oo filimo badan oo isaga leeyahay iyo kuwa kale uusan isaga jilinba heesa isaga uu qaaday ayaa ku jira. waxaana ka mid ah
waana sababta keentay in uu NTR Rama Rao uu ka mid noqdo tobanka jilaa ee waxa uu actorkan waa NTR jiliinka kusoo jiray teeri yaraantiisii abaalmarino badanna waa uu ku guuleystay kuwa kalena haatan ayuu filayaa waxaana lagu qadariyaa inuu ka mid yahay actorada ugu wanaagsan Tollywood film industry. haddaan intaasi kaga gudbo NTR waxaanu soo qaadanaynaa rugcadaaga waa Akanini Nagaswara Rao. Akanini Nagaswara Rao waxa uu ka mid ahaa actorada aadka looga qadariyo kana mid ah rugcadaaga Tollywood industries oo muddo 10 sano ah kusoo jiray. waxa uu fanka kusoo biiray 70-aadkii waxaana uu wax ka jiray filimo aad u badan waxaana uu ka mid yahay rugcadaaga aadka looga qadariyo kor u qaadista shirkadda Tollywood film industries ee dalkaasi Hindiya. waxaana uu ku jiraa saan horeba idinku sheegnay kaalinta 5aad. kaalinta 4aad dhanka qiimeynta waxaa ka galay jilaaga daada yar waa Prabhas. Prabhas oo aad wada taqaanaan oo ka mid ah actorada Tollywood industries waxa uu caan ku yahay labadiisa filin ee Bahubali 1 The Beginning iyo Bahubali 2 The Conclusion. jilaagan filimo badan ayuu jilay hayeeshee waxa uu fanka kusoo biiray sanadku markuu ahaa 2000 wixii ka dambeeyay muddo badan oo uu ku jiray labadiisa filin ee mucjisada ah waa qaybtiisa koowaad Bahubali iyo tan labaad markuu uu jilay waxa uu ka mid noqday actorada magaca weyn dunida ku yeeshay dalka Hindiyana aad looga qadariyo Tollywood industry-na ku yeeshay sumcad aadka u wanaagsan. haddaan intaasi kaga gudbo Prabhas waxaa kaalinta 3aad ku jira Alu Arjun. Alu Arjun oo ka mid ah actorada Tollywood film industries aadka looga qadariyo waxa uu ka mid yahay actorada aadka ay u sharfaan taageerayaasha Tollywood film industries waxaana uu ka mid yahay actorada aadka loogu qadariyo fikirkooda iyo hadafka ay filimka u dhigayaan. waxa uu ka mid yahay dadka wax ka diyaariya directoradana badanaa waxa uu la qorsheeyaa ama la diyaariyaa qaabka filimkaasi uu noqon lahaa waana ay ku qadariyaan waxaana uu ka mid yahay actionada filimada uu ku jiro actorada iyagu iskood u diyaariya. waxa uu ku leeyahay mujtamacaad u badan oo taageersan waa Alu Arjun. sidaasna waxa uu ku galay kaalinta 3aad markii ay noqoto qiimeynta Tollywood film industries. kaalinta 2aad waxaa ku jira Kondiela Kalyan Papu oo ka mid ah actorada aadka looga qadariyo actorada Tollywood film industries. waxa uu ka mid yahay Kondiela Papu is also waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Pawan Kalyan ayaa loogu naanaysaa waana magaca dhanka fanka loogu yeeray. waxa uu ka mid yahay actorada filimada sameeya filimada maalgeliya waliba misana intaa waxa uu sii dheer inuu director gareeyo. waa sidoo kale waxa intaa u sii dheer inuu siyaasi yahay lugta kula jira siyaasadda labada gobol. waxaana lagu qadariyaa inuu yahay walaalka ka yar Chiranjeevi oo aan horey u soo sheegnay waana adeerka actorka daada yar ee Ram Charan. actorkan aynu ka sheekeynayno waa kabtanka Tollywood celebrity cricket league ayuu kabtanka yahay waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay top 10ka 2017